cabashada ka soo baxaysa gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo gudoomiyaha maxkamadda gobolka ee baarlamaanka qusaysa waxaa telefoonka kula xiriirnay xildhibaan Warsame Maxamed Xasan Warsame Joodah oo mar gobolka Banaadir ka soo shaqeeyay haddana mudana ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya waxaana weydiinay dhibaatada laga sheegayo baarlamaanka ee la leeyahay waa laga shaqeynayay xagee ka timid. bismillah wa salaamayna horta madaxda gobolka heer gobol ama gobolka Banaadir gudoomiyaha gobolka Banaadir mataqaana maxkamadda iyo midka gobolka labadaba waa gobolka laakiin kan maxkamadda iyo kan gobolka Banaadir labadaba waa salaamayna iyo madaxda kale ee kala duwan qarankaba dhammaan horta marka ugu horeysa hal dawladaan ay toban dawladood ma yihiin dawladuna way soo shaqaysaa isma dhaleecayso isma hayso isma qabqabsato wixii sharci iyo wixii fiicanna waa ku wada shaqaynaynaa wixii sixid u baahanna in la saxo ayaa la rabaa maahane in dawladda isxaydo xal noqon mayso dawladday waxyeello u tahay dadka Soomaaliyeed oo ka sugaya adeeg iyo mataqaana shaqo ayay waxyeello u tahay salahaan horta waxaan soo jeedinayaa madaxda qaranka ee qaybay tahaba inay marka ugu horeysa la isxurmeeyo la isxaq dhowro dawladnimada la dhowro dadnimada iyo ummadnimada wax uga dhaxeeyaan la dhowro waxaana dad Soomaaliyeed oo shirka ah dana ka dhaxeeyaan dawladnimadu ka dhaxeyso qofkii xumaan ka shaqeysa oo dadka Soomaaliyeed u kala eexanaysa ama dadka Soomaaliyeed wax u dhibaysa waa la arki doonaa nimanka maamulka ayagaa laga rabaa maamulka ummadda ay hayaan wax toosanina ugu imaan mayo ninkii ugu yimaado wax toosano oo yiraahdo ii qalleecina dee waxa la yidhi ninkii isha dabana ummadda u jeeda ninkii uurka dabana ilaah baa u jeeda waxa weeye ayagaa laga rabaa wanaagii ummadda xildhibaan iyo qaybta waaye inay horta wax toosiyaan maamulka ay hayaan toosiyaan ciddii xildhibaan oo ugu timaadana shaqo qaran oo qayb ka yihiin hadday ugu timaado wixii la gudboon ama wixii wanaagsan inay ka yidhaahdeen ayaan horta qabaa waxaan leenahay dawladnimadana laga daayo saysadka iyo wax kala jiidasho xildhibaan waa ku fahmay xildhibaan waa mahadsantahay waan ku fahmay waxaan rabaa miyuu jiraa dhibkan la sheegayo horta ee ah in idinkala shaqeyn laaya xubnihiina ama qaar ka mida wax warbixin noocaasi oo aad ma jirta ma maqlin hadday jirtana ciddii dacwada baarlamaanka iyo ciday ka dacwatahay waa laga daba tegi doonaa haddii xafiis qaran leeyahay waa gobolka Banaadir ha ahaado heer maxkamadeed ha ahaado heer gobole maxaana loo kugu imaanay qabaan madaxda gobolku hadda taas waxay dadkay hortaalaa dadka loo adeegayo baarlamaanka nabiyiino adeegaa naga soo gelaya waxaa naga soo gelaya mataqaana dana badan oo naga jira waxaa naga soo gelaya mataqaana dad waxay danay kale yihiin oo inaan mataqaana markaas war waxaan kaalayo in yar gacaniga si lagu yiraahdo gacansiintuna ma ahan inaad ama mas-uulkii gobolka qaybta rabaa aad tiraahdo wax qalooci qofkii tiraahdo ayaday u taalaa madaxda loogu tagana ayaday u taalaa markii dawladda hoose gudoomiyaha ay u tagayaan xubnaha baarlamaanka inaysan feel gelin oo laga yaabo qof 5 maalin 4 maalin iyo ka badan u soo laalaabanaya la kulanka gudoomiyaha in uu ka hormaro xildhibaan saacado ama daqiiqado kooban goobtii soo gaaray taasna ay sababto in waqtigii loogu talagalay shacabka oo inta ku dhamaado maalmo kale haddana ay ku sii qaadato miyay jiraan xildhibaano feel gelaya inay la kulmaan gudoomiyaha sida shacabka oo kale waxa laga yaabaa aniga hadda kula hadlaya gobolka Banaadir waana ka shaqayn jiray haddana mas'uuliyiinta qarankan kamid ah waxa laga yaabaa ugu yaraan 6-7 maalmood aan helin inta gobolka ka noqdo maanta u dambaydo dadka ma taqaana dadku waxa weeye hadii uu isxumaytaga ama hadal xun inuu iyo wadaqa loocan iyo waxun inuu isku sheego damco dadka cagtu wada mariya hadii qolooyin loo naxariisto aan la celin ay jiraan waa gaarkeeda laakiin anu waxaan leeyahay
kuma fiicna dawladda inay isdhaleeceydo. haddaan hadda caawa aan ama guddoomiyaha maxkamadda dhaleeceeyo ama wuxuu mataqaana aan ku arka ka sheego waxyaabo badan bay xumaynaysaa, colaaday gelinaysaa. kan gobolka haddi sidoo kale waxa weeye nidaamka iyo nabad wanaagga ee mataqaana ka dhexaysa maamulka qaranka waxaa la rabaa inay qof walba dhowrto. dibkuwa wuxuu dhihi karaa shaqaan hayaa ummadeed maantay berito saa dambe xildhibaankii u yimaado dana kale ma isheli karno. haddii kalena istaag waxay ku yidhaahdeen muraadka ugu socdo wuxuu dhihi karaa muddadiisa u sii karaa dadka soomaaliyeedoo xildhibaan ma jirtaa in xildhibaanadu ay ka daba tagaan dadka dacwada loo haysto oo ay garsoorka ugu tagaan dalbadaanna in il gaara lagu eego dadka ay waalid ama qaraabo ama ay matalaan ay la kulmaan iyagoo dhinaca kalena aanan doodiisa iyo dacwadiisa iyo xanuunkiisa aanan u daran yeelin? annagu waxaan nahay shacabka dadkii ka yimid oo mas-uuliyiinta ahaa, inaan qofna dulmino qofna aan mataqaanaa danaheeda gaar u raadinana kumana shaqayno. haddii qoftii aan xildhibaanka u ahay ay dhibaato ay ka tirsanayso xafiis, haddii xaq lagu maamulayna haddaan raaco oo la taga xafiiska, haddii xaq lagu maamulayna xaqaa lagugu maamulayo kuqanaxaan leenahay. haddii xoogaa xaqdarra ka muuqatana war halkaan xaqdarra amay ka muuqata haddii la yidhaah xumaan ma ahan, waa xafiis qaran. wixii saxana waa ciddii raacid weysaa ayay u taallaa. wixii qaldana in la saxo caqliga iyo sharciga labaduba waa qabaan. dhaawac intee la-eg ayay hay-addan u geysan kartaa cabashada ka soo baxaysa guddoomiyaha maxkamadda iyo guddoomiyaha gobolka banaadir in baarlamaanka laga shaqayn laya? waa laga shaqayn laya waa war kale. ninkii shaqaynaya shaqadii waa hayaa, waana loo wakiishay. inuu qabtana waa looga fadhiyaa. baarlamaan inuu ka qaba waayana uma arko hadal runa. danaha dadka soomaaliyeed ka leeyahay gobolka oo howlaha ummadda laga fulinayo ayayna wax ku leeyihiin. yaa lagu marmarsiyaan qof walba hawsha loo idmaday oo ummadda soomaaliyeed ka sugaya ha qabato. maxaa is leedahay arrintan waa xaqiiqo way jirtaa miyaad is leedahay mise waa arrimo siyaasadeed oo dana kale laga leeyahay? waxaan u arkaa inay arrimahaas arrimo siyaasadeed oo dana kale ay tahay. sababtu annagu baarlamaankan kamidnahay, cidna ma dhibno. mataqaana magaca baarlamaankaan wax ku leenahay, magaca qarankaan wax ku leenahay. xafiiska dawladda hoose danayga gelaysa, xafiiska maxkamadda danayga gelaysa. wax dhiba iyo wax shaqadooda aan midna ku dhibnana ma jirto. cidda dhibta oo dhib ku haysta ha soo dacweysto qoftii dhib lagu hayo. laakiin qoftii shaqadeeda inay qabsato ay wanaajiso qurxiso weysaa. haddii ay mataqaana dad kale marato waa dhib kale. xildhibaan warsame maxamed xasan warsame joodax oo golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ka tirsanayo kaasi dhegeystayaal wuxuu ka hadlayay